Soomaaliya waa dal dhaca geeska bari ee qaaradda Afrika waana dalka 43aad ee ugu baaxadda weyn dunida ahna kan 19aad ee ugu weyn qaaradda Afrika sidoo kale waa dalka ugu xeebta dheer dalalka gudaha ee qaaradda ee loo yaqaan mainland sidoo kale waa kan labaad ee ugu xeebta dheer guud ahaan Afrika dawladii dhexe ee Soomaaliya waxa ay ka koobneed 18 gobol iyo 9 degmo kuwaas oo ku fadhiyay masaafo dhan 637,657 kiiloomitir oo wareeg ah caasimadda wadanku waa Muqdisho ahna magaalada ugu weyn uguna dadka badan taas oo saaran xeebaha koonfureed ee dalka gobolka bari ee dhaca waqooyi bari ee dalka ayaa ah kan ugu baaxadda weyn dalka waana gobolka ay maraan labada badood ee kala ah badda cas iyo badweynta Hindiya halka gobolka Banaadir uu yahay kan ugu yar dalka baaxad ahaan 6 kamid ah 18 gobol waa bad xiran ama ma saarna xeebaha waana kuwa dhamaantood marka laga reebo gobolka Bay xuduud la leh dalalka aynu xuduuda wadaagno marka laga reebo Djibouti waana gobolada kala ah Gado Bakool Bay Hiiraan Sool iyo Togdheer sidoo kale wadanka waxa mara laba webi oo ka yimaada dhulalka sare ee dalka Itoobiya Shabeelle iyo Jubba waa uu ka ballaaran yahay webiga Shabeelle halka Shabeelle uu ka dheer yahay Jubba labadooduba waxay dalka ka soo galaan gobollo aan badda saarnayn Hiiraan iyo Gado gobolada labada Shabeelle iyo labada Jubba ayaa ah kuwa qani ah waxa ayna leeyihiin webiyadii iyo badiiba waana kuwa ku haboon beerashada iyo daaqsiga halka gobolka Gado uu ku haboon yahay xoolaha nool Caluula waa degmo dhacda gobolka Bari waana marinka Raas Casayr waa degmo kulmisa labada badood waana meesha ay ku kulmaan buurta ugu dheer wadanka waa Suurad oo dhacda gobolka Sanaag fiiqa ama oogada ugu sareysa dalka waa Shimbir Beeris kaasoo badda ka sareeya in ka badan 2400 oo mitir